dhagaxdhigan maanta maamulka degmada Cadaado ay ka sameeyeen gudaha magaalada ayaa ah mid lagu ballaarinayo xarunta caafimaad ee MCH ee ku leeyahay gudaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaana dhismaha xaruntan gacan ka geysanaya hay'adda ICRC waxaana dhisaya mid ka mid ah kabaniyaasha ka howlgala gudaha Cadaado Daar Cismaan oo ah madaxa MCH ka degmada Cadaado ayaa ka warbixinaya hawsha halkan ka socota. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan joognaa xaafadda Karaamo waaxda Karaamo ee degmada Cadaado halkan waa dhulkii loogu talagalay in laga dhiso xarunta caafimaadka bisha cas ee Cadaado ee cusub dhulkan wuxuu ka kooban yahay 61 mitir oo lagu dhiftay 41 kadib markuu nagu yaraaday dhismihii hore ka degneen magaalada Cadaado ayaa la doorbiday in la sameeyo xarun ballaaran oo u dhiganta xarumaha caafimaadka ee casriga ah kaas oo laga dhisi doono dhismo badan oo wax badan kii hore ka sareeya gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulka degmada la jooga iyaga ayaa noo dhagax dhigi doona waxaan uga mahad celinaynaa maamulka degmada oo siiyay dhulkan ballaaran oo intaan la eg si loogu adeego ummadooda. gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootol halkan hadal ka jeeshay ayaa sheegay in loo baahan yahay in xarumaha danta guud horumar lagu sameeyo muhiimna ay tahay isla markaasna dadka deegaanka ay si wanaagsan uga faa'iido doonaan. xarunta cusub ee loo dhisayo bisha cas ee Soomaaliyeed qaasatan gobolka Galgaduud xaruntii degmada Cadaado bisha casna waxaan ognahay wax weyn oo muhiimad weyn ah dadka deegaanka ugu fadhisaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa bisha cas iyo ICRC hay'adda oo bixisay qandaraaska bixisay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa kambaniga ku guuleystay ee tanaad waxa la rabaa kambanigan meeshan dhismaha waan kula xisaabtamaynaa kambaniga la siiyay waan ag taagnaanaynaa tayada iyo nidaamka iyo say wax u dhisayaan annagu ma ogolaanayno inta kambanigu qandaraas soo qaato wuxuu rabo inta sabsameeyo inuu iska tago ha ogaadeen inaanu daba joogayno inaan ag taaganahay. Xasan Axmed Maxamed Hirshabelle TV Galmudug.